بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN barnaamijka caawa kabihaba waxaynu ku soo qaadanaynaa saddexdii sano ugu dambeeyay adduunka hadalhaynta dagaal nuclear oo dhaca ayaa xoogeysanaya waxaana tani ugu wacan dagaalka Ukraine oo faraha ka sii baxaya isla markaasna waxa xoogeysatay xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo waliba gaashaburta NATO gacanka Korea hogaamiyaha Koreada waqooyi Kim Jong Un ayaa dhowr jeer ku hanjabay inuu isticmaali doono nuclear haddii la soo daandaansado waxaana uu ka digay dhowr mar oo dhoolatus halka ay ka sameeyeen Mareykanka Japan iyo waliba Koreada Koonfureed xiisadda Shiinaha iyo Taiwan ka dhex aloosan oo Mareykankuna uu ku lamaasan yahay Taiwan ayaa sidoo kale cabsi laga qabaa iyadoo saraakiil Mareykan ay sheegayaan xukuumadda Beijing inay u qorsheysan tahay sanadka 2027 inay duulaan ku qaado jasiiradda Taiwan oo ka hordhowday Shiinaha arrimahaasi oo idil iyo dagaalada bariga dhexe ka socda intuba waxay keeneen in la hadal hayo sidoo kale dagaalkii saddexaad oo adduunka ka dhaca nuclear la isku adeegsan karo madaxweynaha Ruushka iyo madaxda kale ee wadankaasi ayaa dhowr jeer ku andacooday in haddii qatar la geliyo amniga Ruushka nuclearku diyaar u yahay sidoo kale madaxweyne Vladimir Putin ayaa wax ka bedelay mabaadi'da iyo caqiidada Ruushka oo ku isticmaali karo hubka nuclearka NATO waxa la aaminsan yahay inay ka dambayso tartanka xagga hubka adduunka wadamada kale ee isku xifaaltanka uu ka dhaxeeyo sida Shiinaha iyo Ruushka hadda Mareykanka ayaa waxa la sheegayaa inuu arkay in lagaga dheereeyo nuclearki inkastoo laga badan yahay oo Ruushka uu yahay wadanka koowaad ee ugu hubka badan nuclearka marka laga hadlayo hadda Mareykanka ayaa qorsheynaya bilaayin dollar inuu ku bixiyo dayactirka iyo dib u qaabeynta awoodiisa xagga nuclearka maxaa laga ogayaa arrintan maxaase ku soo beega xilligan waxaynu kula eegi doonaa Shiinaha iyo Ruushka halka ay ka joogaan arrimahan macluumaadkaas oo idil ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com miyay quruxdii ilkaha adiga qaar ka lumeen miyay qayirmeen dhammaan dadkuna kugu quursadeen miyaad qajilaad darteed adigu qosolkaba gabtaa Ramadan Dental Care waxaad ka helaysaa ilkaha casriga ee zirconia teeth bridge teeth iyo denture teeth oo ah ilkaha ugu sarreeya ee la gashado ama kuwaaga ayaa lagu qurxinayaa haddii ay kaa jajabeen qaybta koowaad waxay ku taallaa Hargeysa agagaarka astaanka basaska u baxa xaafadda Xira Awr qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca koonfurta qaybta Burcana waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom Burco kala xiriir nambarada shaashada aad ku aragtid Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah maxamed Cade ayaa xogahan soo ururiyay qadkan ku jira maxamed waxa loo tafaxaydinayaa awoodii nuclearka in cid walba ay awooddeeda kordhiso laakiin Mareykanku wuxuu dareemay in lagaga horeeyo arrinkaasi haddana uu bilaabayo dib u habeyn lagu sameeyo nidaamkaasi bal inooga waran arrintan iyo waxa laga qoray warbixin cusub ayaa waxay dabool ka qaadaysaa in dowladda Mareykanka ay qorsheynayso in balaayiin dollar ay ku qarash gareyso sidii ay u casriyeyn lahayd hubkeeda nuclearka dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa in ay ku qarash gareyso lacag gaaraysa 138 bilyan oo dollar ee madaxyada nuclearka ah oo la casriyeynayo iyadoo hay'adda quwadda ay miisaaniyadda ay soo saarayso 2024 ilaa 2049 ku talagelaysa sida warbixinta lagu xusay in kharashka lagu daro waxaana warbixintan qortay hay'ad la yiraahdo Ross Congress waxaana muuqata in ay tahay isbedelkii ugu weynaa ebed ee lagu sameeyo hubka nuclearka ee Mareykanka nidaamkan casriyeynta nuclearka ayaa la dardargelinayaa 2023 wasaaradda gaashaandhigga ayaa 200 oo madax oo nooca nuclearka ah oo la casriyeeyay la soo gaarsiiyay waxayna noqotay hubkii ugu badnaa
wasaaradda gaashaandhigga loo soo gacangeliyey wixii ka dambeeyey dagaalkii qaboobaa. ilaa iyo 500 bilyan oo dollar oo kale ayaa la filayaa in lagu qarash gareeyo sidii lagu maarayn lahaa hubka kaydka ah ee Mareykanka sida ay hay-addani sheegayso. waxaana intaa lagu daray in tirada dadka ee loo shaqaaleeyey in ay casriyeeyaan barnaamijka nukliyeerka ee Mareykanka in tiradooda 70% ay korodhay 10 sano ee ugu dambeeyey. waxaana muuqata Mareykanka inuu howl weyn uu ambaqaadayo. way hawshiis marka la amba qaadayo ma la sheegay qaybaha dib u casriyeynta iyo dib u hagaajinta lagu samayn doono? qorshaha casriyeynta waxaa ka mid ah baa leeyahay gujisyada Mareykanka ee madaxda nukliyeerka qaada, gantaalada qaada iyo diyaaradaha istiraatiijiga ah ee bamka nukliyeerka qaada. laga bilaabo baa leeyahay 2030 gujisyada loo yaqaan Ohio oo hadda ku qalabaysan gantaalada ballistikada ah ayaa waxaa lagu bedeli karaa ama lagu bedeli doonaa gujisyo kale oo loo bixiyey Colombia. waxaana ay noqonayaan sida kuwa diyaaradaha qaado oo kala miisaaniyadda ku baxaysa ee la codsaday 2025 oo ciidanka badda ay codsadeen ayaa 10 bilyan oo dollar ku dhow si maraakiibtaas gujiska ee Colombia loo yaqaano loo soo saaro sida hay-addani ay sheegayso. waxaa sidoo kale la filayaa gujisyada cusub in lagu qalabeeyo gantaalada loo yaqaano Trident 2. waxaa sidoo kale la sheegayaa in la dhammaystirayo wejiga labaad ee lagu ballaarinayo dayactirka iyo hagaajinta iyo qalabaynta maraakiibtaasi gujisyada ah sida warbixinta lagu xusay ee Colombia loo yaqaano. waxaa sidoo kale la sheegayaa qaabka gantaalada gumacyada nukliyeerka ah loogu dagaal galo, ha noqoto xagga cirka, ha noqoto xagga badda. waxa weeye isbedel ayaa lagu sameynayaa. waxaa sidoo kale ku jira baa leeyahay 46 diyaaradood oo ku wax duqeeya ah oo B-52 ah oo awood u leh inay qaadaan madaxyada nukliyeerka, 20 diyaaradood oo nooca B-2A ah oo ayagana diyaaradaha bombooyinka istiraatiijiga qaado nukliyeerka laga wado. marka uu yahay sanadku 2050 waxaa la bedelayaa dhammaan diyaaradaha waxaa lagu bedelayaa B-22 jiilka labaad ee wax duqeeyaasha ah. waxa ayna soo howlgeli doonaan bilowga 2027 sida wasaaradda gaashaandhigga ay ku talagashan tahay 100 diyaaradood ayay dalabtay. diyaaradahaas cusub ayaa waxa ay lagu casriyeynayaa oo lagu xirayaa bombooyinka B-61/12 iyo B-61/13 oo hawada laga soo daadiyo. waxaa sidoo kale lagu ballaarinayaa gantaalada cruise-ka loo yaqaano nooca AGM-181 oo ridada fog ah. waxaana muuqata baa leeyahay sida warbixinta xusayso in Mareykanku uu rabo inuu gantaaladiisa ayagana casriyeeyo. waa gartay marka maxay tahay marka fariinta qorshahan uu diraya? warbixintan meelo kale oo kamid ah ayaa waxay xusaysaa hay-addu warbixinta diyaarisay waxay ka digaysaa in qorshahani uu abuuri doono tartan cusub oo xagga hubka ah oo dhex mara Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha. meelmarinta barnaamijkaasi ballaaran ee dowladda Mareykanka ku casriyeynayso hubkeeda gumacyadeeda nukliyeerka kuna bedelayso maraakiibteeda ama gujisyada qaada hubka nukliyeerka ah kuna dardargelinayso awoodeeda ay cilmi baaris ku sameynayso iyo nukliyeerka in ay ka dhigto mid furan oo tartanka ay kula jirto Ruushka iyo Shiinaha au noqdo mid dardar gala sida warbixinta lagu xusay. warbixinta ayaa sidoo kale waxa ay soo baxaysaa iyadoo dowladda Mareykanka iyo Ruushka ay xaqiiqadii ay bilaabeen inay casriyeeyaan hubkooda nukliyeerka. waxaana la sheegaa inuu yahay mid cusub oo ka awood badan kii hore, halka Shiinaha ayaga lafkooda ay bilaabeen inay ballaarin weyn ku sameeyaan hubkooda nukliyeerka. wixii laga bilaabo dagaalka Ukraine, Ruushka ayaa si joogto ah
waxa ugu hanjabaa inuu hub nuclear isticmaalayo isagoo ku jawaabaya haddii mustaqbalka tilaabooyinka Mareykanka iyo NATO ay qaadayaan ku taageerayaan waddanka Ukraine ay khatar lagu geliyo ammaanka waddanka Ruushka. waa garta waddanka Ruushka maxaa soo hadal qaaday marka dhanka Ruushka maxaynu ku ognahay haddii hadda Mareykanka aynu aragnay inuu qorshahan damacsan yahay Ruushka bal xaggiisa inooga war. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka in isku dayayso inay colaadda waddanka Ukraine ballaariso muddo dheerna ay socoto iyadoo isku dayaysa inay daandaansi ku samayso Shiinaha sidoo kale iyo qaybo badan oo caalamka ka mid ah iyada oo hanjabaadaasi ay joogto tahay ayaa xukuumadda Shiinaha ayadana waxaa sii kordhaya awooddeeda militariga. Kongareeska Mareykanka ayaa waxa uu ansixiyey barnaamij lagu horumarinayo nuclear qarashkiisa uunan badnayn oo loogu talagalay in madaxweynaha Mareykanka la siiyo khiyaaraad haddii mustaqbalka ay colaadi dhex marto Mareykanka iyo Ruushka ama Mareykanka iyo Shiinaha. waxaana muuqata in Mareykanka uu xidhiidhanayo isdiyaarinayo. waa gartay hadalba Maxamed wuxuu ka soo yeeray ninka u qaabilsan ama madaxda u ah Mareykanka barnaamijyada nuclearka hadalkaasina walaac buu xambaarsanaa bal warkaas inooga waran muxuu sheegay. dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa ah labada dowladood ugu waaweyn ee hubka nuclearka ugu khatarsan caalamka haysta walina ka sii shaqeynaya inay hubkooda nuclearka ballaariyaan. waxaa ayagana jira dalal xayna oo ay ka mid tahay Britain, Faransiiska, Shiinaha, Hindiya, Pakistan, Kuuriyada Waqooyi iyo xukuumadda Israa'iil oo aan marnaba sheegin inay wax nuclear haysato. marna ma ogolaato xukuumadda Israa'iil in hay'adda caalamiga ah ay kormeer ku sameyso hubkeeda nuclearka. laakiin waxaa cad in nuclearka uu Ruushku haysto uu yahay nuclear aad iyo aad u badan isla markaasna saameyntiisu ay aad u culus tahay. Mareykankuna waxa uu walwal ka qabaa in dagaal nuclear hadduu yimaado ay noqonayso dagaal dhibaato weyn geysta. waa gartay waayahay dhinaca kale marka Maxamed aan ka eegno haddii tartankan uu jiro Mareykanka iyo Ruushkana sanka isku saarayaan hadda inkastoo labada dhinac aysan imika si toos ah ugu caaboonayn dagaal nuclear oo la galo Shiinahana loo jeedo arrintiisa Mareykanku ma ku gaari karaa marka inta hadda ay tiigsadeen wadamadaasi ma laga yaabaa isna inuu gaaro hadduu hadda xaydxayto. samaynta xagga gantaalada iyo hubka iyo xagga diyaaradaha casriga iyo gujisyada waxay u baahan tahay laba aqoon oo labadaba mug leh. aqoontan physics loo yaqaano qaraxyada iyo gantaalada iyo sida loo riday iyo waxa qoseeya iyo waxaan loo yaqaano mahnadan la yiraahdo dhisidda oo injineerada. hore ayaan daawadaasha HBN ugu sheegnay wadamada reer galbeedka sanad walba jaamacadahooda waxaa ka soo baxa sanad walba sanadka dambeeya injineerada ugu yar sababtoo ah xisaabaadka iyo sayniska ayay gaabis ka noqdeen. haddii aad xisaabaadka gaabis ka noqoto horumarkaaga xagga militariga iyo xagga wax walba dib ayuu u dhacayaa sababtoo ah xisaabaadka waxay lafdhabar u yihiin cilmiga sayniska. hadda cilmiga hawada sare Ruushka iyo Shiinaha ayaa majaraha u haya. reer galbeedka muddo dheer ayay isku dayayeen ilaa ay haddeertaan ma laha maxadda cirka taala marka laga gudbo maxaddada caalamiga ah oo Ruushka lafdhabar u yahay oo hore daawadaasha HBN uga sheegnay. Shiinaha hadda waxay samaysteen maxadda ayaga ay leeyihiin waxaan qalabka casriga ee la sameynayo oo dhan waxaa sameynaya injineero. wadamada Shiinaha, Hindiya, Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi xagga sayniska iyo xagga xisaabaadka ayay horumar weyn ka sameynayaan. meelaha jaamacadaha reer galbeedka sayniska iyo xisaabaadka uu dib u dhac u dhacayo. bishii haddii lasoo dhaafay jaamacadaha qaar ayaa xataa waxay qaadan waayeen arday cusub sababtoo ah waxay xireen qaybihii ugu muhiimsanaa ee sayniska sida jaamacadda Hal oo kale waxay xirtay departmentigii chemistryga. waxa weeye reer galbeedka hadda waxaa soo food saaraya tirada dadkooda hoos u dhacaysa
waxbarashadii sayniska iyo xisaabtay hoos uga dhacayaan iyo adduunkii intiisa kale oo sii ballaaranaya aqoontii oo hadda noqotay mid aad u ballaaran tartankan marka lagu sheegayo hubka waxa weeye waxaa keenaya waxa weeye isbeddelka adduunka ku yimid tiknolojiyadii hore ma sii socon karto maraakiibta iyo diyaaradaha la dhisayo haddii aynan ku salaysnayn aqoon cusub iyo xikmad cusub iyo dad dhalinyaro ah oo maadooyinkan si fiican u yaqaana waxay noqonaysaa tartanku inuu noqonayo mid dhinac u janjeera waana arkaynaa meesha ku shubata laakiin waxaan kuu sheegayaa reer galbeedka oo dhan xadaaradooda sida ay u dhigayaan khabiirada ku talax tegey arrimaha la xiriira xagga sayniska waxay leeyihiin sayniska reer galbeedka baa ku guuraya xataa laysaska markaa fiirisid iskuullada ardada ka baxda ee caalamka oo dhan la isku bardhigo waxa weeye wadamada Yurub siday ahaan jireen maaha waxaa ka horeeya Japan baa ka horeysa Shiinaha Hindiya Ruushka Iran waxay ku jiraan safka hore marka la fiiriyo adduunka islaamka Iran ayaa number 1 ah gantaalada ay samaysanayso iyo diyaaradaha aan duuliyaha ahayn hamoodin inay meel cidla yihiin waxa weeye aqoontaada hadday korodho waxaa badanaya in la daahfuro aqoon cusub iyo waxyaabo cusub dagaaladii sidii la aqoon jirin way isbedelay haddii la gaaro oo kale diyaarada daroonaysa hub nuclear wada oo khasaarahoodu yar yahay oo lacagta lagu sameeyay yar tahay waxay noqonaysaa in tiknoolajiyada ay faraha ka baxdo marka waxyaabo fara badan ayaa jira reer galbeedkana culays fara badan ayaa saaran aad iyo aad dabcan halkan waxaan ka sii daynay toddobaad ka hor diyaaradda halkan ka muuqata ee F-35 midda kore oo la leeyahay cillad baa ku dhacday qaybo kala duwan oo ka mid ah diyaaraddaasi sidoo kale halkan waxaynu ka sii daynay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron oo si cad u leh waana ka dheereeyay markay timaado farsamada hubka iyo kaydka hubka iyo arrimahaasi oo idil waaya maxaa marka dhanka aqoonta lagu kala tegay ma dagaalada ay reer galbeedku ku jireen oo Mareykanku ku jiray iyo wadamadan oo dagaal aan gelin sida Shiinaha si gaar ah dhaqaalihiisana kordhinaya awooddiisa military kordhinaya miyaa ugu wacan maxaa dadka Maxamed Balushar maxaa lagu kala tegay waxa lagu kala tegay waxa weeye reer galbeedku waxay noqdeen dad isisiiyay aqoonta oo u haysta inay ixtikaar ku haystaan inay ayaga gaar u tahay aqoonta sideedaba maanta adduunyada lagu naaloodo islaamku wixii laga soo minguuriye weey ama xisaabaadka ha noqoto ama saynisyada kala duwan ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto abaal Yurub ogama hayso in islaamka aqoontaas ka heshay haddana cid abaal oga haysa Yurub ma jirto inay aqoonta ka guurayso sababaha keenaya inay aqoonta ka guurto waxaa kamid ah hadda tiknoolajiyada ugu sareysa lacagta ugu badan adduunka laga sameeyo waa tiknoolajiyadan isgaarsiinta weey tiknoolajiyadan isgaarsiinta shirkadaha waaweyn ku howlan arrimahan dadka ay shaqaaleeyeen waxaa u badan Shiinays Hindi iyo dadka yimid Asia ama meelo kala duwan ka yimid ama Iran ha noqoto ama Ruush ha noqoto sababta keenaya waxa waaye haddii sayniska aad baran weydo oo xisaabaadka aad ku fiicnaan weydo oo injineero badan aad soo saari weydo Mareykanka sanadkii la soo dhaafay wuxuu soo saaray 7% ardayda jaamacadiisa ka baxaya injineero ah waxaa laga hadlayaa 50% in ka badan waddanka Shiinaha 30% iyo dheeraad in ka badan Ruushka Hindiya 40% in ka badan waxaa socda marka aqoontii iyo dadka isku taxalluujinaya inay wax bartaan ayaa waxay u badan yihiin dadka aan Europeanka ahayn waxaa kaloo ayadan is soo taraysa adduunkii dadkiisa waxa uu gaaray 8 bilyan ayuu gaaray Europeanka haddii la isu geeyo 44 dal weeye laba dal baa inta badan laga reebaa Belarus iyo waxa laga reebaa iyo Ruushka laga reebaa inta kale haddii la isu geeyo xataa 1 bilyan gaari maayaan sidee marka adduunka majaraha u hayn karaa tiknoolajiyada iyo aqoontoodii hore dhan waa laga dalacay waxa weeye haddii tiknoolajiyada iyo waxa socda sanadba sanad ka dambeeya waxa soo baxaya wax casri ah oo wixii hore ka fiican baabuur hadda waxaa jirta sida uu ku hanjabayo madaxweynaha cusub ee la doortay ee waddanka Mareykanka Trump in uu canshuurta 100% ka dhigayo waxyaabaha laga soo saaro wadamada BRICS maxaa looga goleeyay baabuur waxaa jirta ku shaqeeya koronto oo ay Shiinuhu soo saaraan oo industriga baabuurta oo dhan burburinaya
wax allaaliyo wixii baabuur soo saara moodaladii caanka oo dhan suuqi ka baxayaan baabuurkani isagoo aanan shidaal isticmaalayn oo koronto isticmaalaya ayuu berri biyood yahay berrigana waa ku soconaya biyahana waa ku soconaya waxa weeye sida loo dayactira way sahlan tahay baterigiisa muddo dheer ayuu jirayaa adduunka isbedel baa ku socda taleefanada suuqa ayay ka xiranayaan shiinaha haddeertaan iyaga dagaal ayaa lagu sameeyey waxaan la yidhaahdo caqliga samayska ah waa loo diiday hadda waxaad moodaa ka iyaga sameeyeen in xataa oo 3 milyan nano inuu ka yaryahay waxa weeye wax ilma aragta ah cabir ayaa lagu xisaabtamaya marka adduunka anagoo indhahayna shan yihiin ayuu isbedelayaa isbedelkaasna waxaa laf dhabar u ah xisaabaadka iyo sayniska yurubna waxaa moodaa inay gaabis ka yihiin waana xaqiiqo aanan waxba laga qaban karin ayagoo dadkooda sii yaraanayo hadda wadankan la yiraahdo Switzerland oo kale iskuuladii dhibaata ka taagan dadka ajnabiga ah waxay diidan yihiin caruurtooda inay iskuulada u diraan iskuulo dhan ayaa xirmaya oo waalidiintii caruurtooda meel kala geysteen maxaa keenaya waxaa la rabaa in caruurtii iyo la kala reebo waalidkooda marka caqliyada reer galbeedka oo dhan ayaa waxay isu bedeshay mutakhallif cid ku raacsan ma jirto waad ogtahay siyaasadihii ka horreeyay intan dagaaladan dhicin Ukraine iyo dagaalkan ka socda bariga dhexe in ay cid walba ku qasbayeen in la baahiyo oo la riixo qoomuludnimada haddana waa socotaa haddana waa ujeeda xaaladda si isbedelayso waayahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii waxaase naga xasuusta daawade si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada oo ay tahay markii kuugu horreysay amaba horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo kuu sahlaysa inaad banki akoonkooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank. IBS Bank iyo xawaalada Ria Money Transfer ayaa kuu suurtageliyey inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdegga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer hadda ka qaado IBS Bank faahfaahin dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran Muqdisho Home Center aqal wada xiriiriyo fadhixiisa loo qabay aroosyadu xasuustaan waxay xoog u yaalaan Muqdisho Home Center xaajiga arooska iyo xaflad guurdhigayo warkaygan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujanayuusan kugu noqon gabar xuural cayn u eg xaakim waa ku siiyay xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubbiguna ku siyaado ee Muqdisho Home Center gabadha xaaji u qaad Muqdisho Home Center waxay diyaar kula tahay dhammaan noocyada aqalada jiifka fadhiyada iyo qalab kasto reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada rogaga iyo agabka qadada oo dhameystiran iyo qalabka elektarooniga ah sida qasaaladaha talaagadaha kukarada TV-yada iyo wixii la mid ah waxaana ay ku taalaa degmada Boondheere gaar ahaanna nawaaxiga isgoyska Jubba ama Busley kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda